munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Laascaanood iyo isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sool ee Somaliland oo lagu bilaabayay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bilaa Cabdi ayaa maanta lagu qabtay isla garoonkaasi ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dirir waxaana uu mahad celiyay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo uu sheegay inuu ka dhabeeyay dhisidda garoonka kubadda cagta Cabdi Bilaa Cabdi ee magaalada Laascaanood maanta waa dhiskii baa bilaamay wuuna socon doonaa nimanka gacanta ku hayaan waxay rajeynayaan oo inoo sheegay in ilaa 2 bilood inta u dhaxaysa 3 bilood ku dhameystiri doonaan waxaan rajeynayaa in si fiican loogu dhameystiri doonaan waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Siilaanyo ballanqaadkii uu noo ballanqaaday inuu dhiso bahda isboortiga ee gobolka caawiyo garoon iyo meel ay yeeshaan ay ku ciyaaraan waxaan rajeynaynaa mataqaana inay si fiican loogu dhameystirnaato madaxweynuhu aad iyo aad ugu mahadsan yahay annagu ka dowladda hoose ahaan waxaan ballan qaadanaa haddii Ilaahay yiraahdo innaguna wixii mataqaana isboortiga aan taakula mataqaana aan tari karo inaan tarno inaan horumarno qurbo jooga reer Sool waxaan ku codsanaa wadartana garoonka saaka waa la bilaabay uu dhismihiisuna waa dhamaanaya idinkuna waxa la idinka baahisay qurbo joog kale gobolada kale inaad ka qayb qaadataan mataqaana tayeynta isboortiga mid ka mid ah injineerada dhisaysa garoonka ayaa sheegay inay 2 bilood gudahood ku soo dhameystiri doonaan garoonka Cabdi Bilaa Cabdi ee magaalada Laascaanood gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayarka degmada Laascaanood mudane Cabdiqaadir Jaamac Saalax isagoo uu mahad celiyay xukuumadda Somaliland isla markaana ku canaantay wax qurbo joogta wax qabad la'aanta deegaanka oo uu sheegay in looga baahnaa inay ka soo qayb qaataan maantiina taasi waa ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Siilaanyo uu naga ballanqaaday maantii waa ballanqaadkii madaxweynuhu waa noo oofiyay si wanaagsan buu noo yeelay madaxweynuhu waa madaxweynaha qoriga ee Afrika oran kale ballanqaad intuu sameeyay uu ballanqaadkiisa oofiyay aan aragnay weeyaan runtii taas aad baan uga mahad celinaynaa madaxweynaha marka labaad fariin waxaan u dirayaa qolada qurbo joogta ee jaaliyada gobolkan baan u dirayaa fariin oo fariintaas ay tahay garoonkii magaalada ilaa 30 sano ku dhawaad ku magacawnaa wax allaali wax shaqo aad ka qabateen ma jirto maantana garoonkii wata dhismaha lagu bilaabay oo maantana la dhisayo muddo 2 bilood gudahooda lagu dhisayo waxaan leenahay dadka jaaliyadaha la mid noqda oo runaantiina dadka la mid noqda oo xagga horumarka kula tartama gobolada kale si kastaba ha ahaatee dhisidda garoonka ciyaaraha magaalada Laascaanood ayaa imanaya xilli baahi weyn ay u qabeen dhalinta gobolka Sool garoon ciyaareed iyadoona uu sheegay maayarka magaalada Laascaanood inuu ahaa shaqsigii sida tooska ah ugu gudbiyay madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo codsigii xilliga tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer aadan maxamed Karaama Universal TV Laascaanood.